kooxda Barcelona ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay tartanka Copa del Rey kadib markii ay kaga adkaatay kooxda Atletico Bilbao ciyaar ku soo dhamaatay 4 gool eber kadib kulankii finaalka ah ee xalay ay wada ciyaareen labada kooxood. qaybta ciyaarta ayaa lagu koonastay labada kooxood Barcelona iyo Atletico Bilbao waxay isku dhaafayeen barbardhac eber. qaybta labaad ciyaarta markii dib isku soo laabtay labada kooxood waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad wanaagsan ay ku sameeyeen fursado badan gool loo fili karay. daqiiqadii 60aad kooxda Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana hal gool eber ka dhigay xidigooda Antonio Griezmann waxaana goolkan ka caabiyay laacibka xulka Holland ee kooxda Barcelona Frenkie de Jong 63 daqiiqo markii ciyaarta mareysay. Barcelona ayaa la timaaday goolka labaad ciyaarta waxaana 2 gool eber ka dhigay de Jong waxaana goolkan ka caabiyay Jordi Alba. daqiiqadii 68aad Barcelona ayaa sii dheereysatay hogaaminta ciyaarta waxaana 3 gool eber ka dhigay Leo Messi waxaana goolkan ka caabiyay de Jong. Leo Messi ayaa daqiiqadii 72aad niyad jabiyay xidigaha kooxda Atletico Bilbao wuxuuna ciyaarta ka dhigay 4 gool eber waxaana goolkan ka caabiyay mar kale saaxiibkii Jordi Alba. ugu dambeyn ciyaartii xalay wada ciyaareen kooxaha Barcelona iyo Atletico Bilbao ayaa ku soo dhamaatay 4 gool eber ee guusha ay raacday kooxda Barcelona. kooxda Catalonia ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay tartanka xiisaha badan Copa del Rey.